okay tusaalehena maanta waa fraction la isku darayo isagoo basekiisu uu isku mid yahay iyo isagoo basekiisu kala duwan yahay. okay haddii aad isku darayso fraction basekiisu isku mid yahay waxaad u baahan tahay baseka inaad hal mid ka soo qaadato. baseka waxaan ka wadnaa denominatorka ama loo qaybiyaha oo ah 9 ayaan soo qaadanaynaa. labadan 9 hal mid ayaan ka soo qaadanaynaa. okay maadaama aan hal ka soo qaadano kuwa kore oo la qaybiyaha ah ama numeratorka waa in la isku daraa 4 lagu daray 1 waa inay noqdaan. sidaas ayaad u qoranaysaa marka ay isku mid yihiin hooseeyahaagu. waxay la mid tahay marka 4 lagu daray 1 waa 5 oo loo qaybiyey 9. kaas waa marka uu yahay hooseeyahaagu isku mid yahay. haddaba hooseeyahaagu markuusan isku mid ahayn maxaad samaynaysaa? okay hooseeyahaagu markuusan isku mid ahayn waxaad raadinaysaa waxa la yiraahdo LCD ah oo lowest common denominator ah, numberka u wada qaybsami kara ama labada numberka ugu yar oo ay isugu imaan karaan labadooda. nambaro badan oo u wada qaybsami kara ayaa jira labada number, laakiin waxaa loo baahan yahay midkooda ugu yar. okay waxa u wada qaybsami kara 12, waxaa kaloo wada qaybsami kara 24. nambaradaas ayaa u qaybsami kara. haddaba marka labada number ay kala duwan yihiin waxa kugu fudud oo aad samayn kartaa ah oo meesha isugu imaan karaan ah in aad fiiriso numberka labadooda ay isugu imaan karaan. maxay isugu imaan karaan? haddii labadooda isku dhufto hadeertaan hore isugu dhufto 24 bay noqonaysaa oo ma baahni marka 24 meel hoostiisa ay isugu yimaadaan. haddii kan marka aan 3 ku dhufto ilaa 12 ay isugu imaan karaan. haddii kan aan ku dhufto 3 oo iraado lagu dhuftay 3 over 3 wuxuu noqonayaa kor 9 hoosna waxay noqonaysaa 12 kaas ayaan u baahana. kan haddii aan ku dhufto asagana 2 waxa la yiraahdo 2 waan u baahana because 12 kaligaan u baahana. waa inaan iraado 1 loo qaybiyo 6 lagu dhuftay 2 over 2 oo noqonaysa 2 over 12. marka labadeeda hooseeye isku mid ayay noqonayaan. waxaan u baahanahay in hooseeyahaygu oo isku mid noqdaan. qaabkaas waa qaabka fudud oo lagu sameeyo in aad taqaano labada number waxa ay common denominator ka yihiin oo meesha macnihii loo wada qaybiyo. so kan waxaan samayn karnaa waxaan ku dhufanaynaa 12 saan uga dhigno halkan ina 12 bay isugu imaanayaan. 12 kan maxaan uga dhigi karaa inaan 3 ku dhufto. markaan 3 ku dhufto korna inaan 3 ku dhufto weeye. kan si 12 uga dhigi karaa waa inaan ku dhufto 2 kanna waa inaan 2 ku dhuftaa. sidaa darteed 3 marka 3 lagu dhufto waxay noqonaysaa ilaan hoos 12 bay isugu bedeshay. halkan waxay noqotay 12 halkaana 12. markaan waxaan haystaa same base sida tan oo kale 12 ayaan soo qaadanayaa. 3 marka lagu dhufto 3 waa 9 lagu daray 1 lagu dhuftay 2 waa 2. waan isku sii dari karaa markan 9 lagu daray 2 waa 11 loo qaybiyey 12.